taariikhdu waxay balamiday 10 saac oo galabnimo balse asiga uu koor maray wuxuu yiri casir waxaan ku tukado yiri dheer السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت wanaagsan daawadayaal meel isbeddeltiin soo dhawaada YouTube channel-ka waa yare official please daad nagu cusub tahay like comment share iyo subscribe intoona waa haddaad horaan la joogtane like iyo comment iyo share kaba intoona waa hadda waxa ahay adiga uga ahay hatay horumarkan adiga ay gaarsiiyay ani isma gaarsiinin marka asxaabay qodobka maanta ni wada waxay tahay maxay aniga maya qodob maanta ani wada waxay tahay asxaabay ayaa waxaa fariintan waxay dhacday sidatan wuxuu dhahay Cabdullaahi markaan aniga dhageystay qoraal ahaan sidii uu soo qoray balse ani maskaxdaada ku hayay inkastoo qoraal ahaan uu soo qoray maskaxdaada ku hayay waa law maalin ka hor soo fariintan wallahi xanuun asla aragno waxay tahay Cabdullaahi ku bilaabay waxay ahayd gabar sidaan u jeclaa weli si xadaaf aan jeclaa weli si kalsooni leh kalsooni inta qafisii ka warsanay jacayl inta qafisii ka warsanay maalmaha kamid ah ayay soo qabatay ama soo waxay tiri waa kulmina waxaan dhahay waa diyaar insha Allah xagaan ku kulmina waxay tiri waxaan ku kulmi doonaa bahadu qaraani noqdo disho ay joogan dadkan dadkii yaqaanyo beerta nabadda wuxuu yiri waa diyaar insha Allah waa ku kulmi doonaa sigine wuxuu degnaay xamar jab waa baxay uu tagay beerta nabadda galab 9 saac ayadoo waxay balamiday 10 saac oo galabnimo balse asiga uu koor maray wuxuu yiri casir waxaan ku tukado beerta nabadda markuu casir meesha ku tukaday miduu fadhiyay telefoonkeeda wacay waxay ku tiri waan kugu soo dhawaay walaal qaaliya isu ayuu yiri waxaan sugo dhahay dheer kadib hadii ku sii saqeedo 10 bar ay hadana ku celiyay wax yar iyo dul qaada jaamada ku jira ay tiri muqdisho iska taqaani waa iska jaam badan tahay okay ayuu dhahay oo ku sugaya wuxuu sugaba ama telkeedu oo sugaba 10 daqiiqo salaam wuxuu isiri malaha dablaan iska soo mari uu dhahay waa iska soo baxay ama iska soo tagay waxaan iska soo aaday xaafadayda aniga daan joogay 2 isbuuc in soo ama teelkeeda imay soo qaban lahay aniga waxaan silaa waayo waxa qafa jeceshahay iska xanaaqay mase maalintaas ee dhaheedo waa kulmeena ayu aroskeeda oran ma awoodi weysay inay tiraahdo abu macaan wali muslimiin qafka lama dhaho hadda waxay isugu dartay nijab iyo inay guri ka soo wado meel ay ku balmido taas wallahi waa aad iyo aad waxaan u badan tahay adiga markii dambe isbuuc mar la joogay isbitaal waan xanuunsaday waan tabcaani isbitaal idida ma ugu wax jecelna isbitaalka suuqa muddo dheer kadib gabadhi ayaa teelkeedii soo dhacay wuxuu yiri saretankii soo dhacay waa lagu soo wacayaa ayaa lagu marka saa u fiirshay sheedan waa ka caafimaad qabaa ciideedii markaas ay dareento dhacay waa ka qabto dhacay waxaan joogaa halkaas aan joogaa ayay tiri waxaan dhahay isbitaalka ku jirta hay'adii malahan ay tiri maamadii ilashay ayaa ka qabatay kadib wixii dhahay maanday wiilkayga madaxaada ayuu isbitaal ugu jiraa marka waa ka saabay wallahi way soo baxdo dhahay way ii timid isbitaalka ay iigu timid isbitaalka markay iigu timid badar waxa iigu dambeeyay dhahay 2 isbuuc yilleeyay badar ay ii soo qaaday markii ii soo kariday ee ii keento dhahay gacantiida ay igu siisay
waana qof marwa ayadii la hadlay mise sheegay dhahay inay marwa tahay waa caafimaad qabaa waa roonaado dhahay marka waxay tiri maamadii waxay ku tiri lahayd hooyo aan gacanta ka saarnay la joog inta isbitaalka ka baxay waxay tiri hooyo aniga turwaa ku xumahay walaalkayga inuu halkan gaaray waxaan ahay qof marwa ama la qabo xanuun kale halkii haddana xanuun kale ka bilowday wuxuu yidhi waan fiirsho dhahay marwa aan dhahay haa buu macaan marwaa nahay waa la qabaa waxaan ka shalaayoo dhahay gacantii badankeeda igu siisay marka isbitaalka waa laga soo daashay muddo kadib banaanka markaa ka imaaday waa runaadoo dhahay maalintaas kadib jacayl dambe ma aaminoo dhahay marka walaal waxaa kaa codsanaya qofma qalbigaaga ku siiyey inaa qalbiga ama gabar ahaa qalbiga qof mar hadduu jacayl ku siiyey jacaylkiisa sidoo uu kuu tixgeliyey maanta u tixgeli siduu kuu siiyo jacayl ku siiyo sidoo wanaag kuu siiyo ku siiyo waxaa jiro dad isdhahayo maantay jacaylka waa lagu qardaraystaa oo jacaylkiisa waa labada qof oo isjacayl haddii noloshaas ku fahmeen alxamdulilah haddaad fahmi weydiin waa isfahmaysaa hadduu calafka dhammaadana in la iska qariyo marka asxaabay fiidiyoogan inaan kusii dheeraada marabo fiidiyoogan intaan ayaa ku tiisanaya qisada way ragaabneed intaas ayuu iiga soo qoray walaalkayga insha allah wixii qisooyin ah waa igala soo wadaagi qisooyin ah dhankaas instagramka ayaa igala soo wadaagi doontaan insha allahu tacaala ayba hadduu qaraani noqdo marka asxaabay fiidiyoogan kusii dheeraada marabo intaa ayaa ku jari doonaa sidaas iyo ammaano allah asalaamu calaykum